sanu boganiga wa badangala balwenta yan laga boojenin baladugso kulanta wacan daawada maxaa ka ogtahay guurka burburay ee habeenka koowaad ee aqalgalka marka hore gacmo furan ku soo dhawow aroosyada waxaa lagu yaqaan in aad looga xiiseeyo daafaha caalamka oo dhan balse dumarka ku nool qaybo ka mid ah dunida waxaa niyad iyo habeen aan la iloobi karin ku noqda xafladda arooska kadib oo waxay u noqotaa farxad aysan filaynin ama ka qaadan murug saameyn ku yeelata noloshooda inta ka dhiman dhowr dal oo carabta muslimiinta ay ku nool yihiin dumarka waxaa laga rajeeyaa in weligood aan lala seexan arooska ka hor BBC-da qaybta af carabiga ayaa la hadashay dhowr dumar oo meelo kala duwan ku nool waxay ka sheekeeyeen sida habeenkii arooskoodii ugu horreeyay u saameeyey iyo inay guur kala helaan inta noloshooda ka dhiman Sumay waa 23 jir Sumay waxay ku guuleysatay dagaal dadban oo ay qoyskeeda la gashay sababtoo ah waxay u diideen inay guursato Ibrahim ninkii ay jecleed oo ay u aragtay siiga ugu wanaagsan ee gabar kasta ay doonayso inay guursato waxba kama aysan ogeyn in riidaas ay rumoobi doonto iyo inay kala kulmi doonto argagax weyn waxay ahayd habeenkoodii ugu horreeyay ee guurka kaas oo loo garanayo ama loo yaqaan habeenka aqalgalka xilligaas oo ay wax kasta ay burbureen kadib markii uu ka shaqeeyay gabarnimadeeda Sumay waxay dhiganaysay jaamacadda Dimashq ee Suuriya Sumay waxay ahayd 23 jir xilligii guurka waxay ku dhawayd inay dhameyso shahaadadeeda labaad ee jaamacadda oo ay ka baranaysay suugaanta Carabiga balse waxay si diiran u jeclaatay Ibrahim oo uu ballan qaaday in cidna aysan ka hor istaagi doonin in ay dhameyso jaamacadda inkastoo qoyskeeda ay u diideen guurkiisa iyagoo u arkay in aysan jaamacadda dhameynin isagana uusan guri haysan Sumay waxay ku adkaysatay in arooska uu dhaco Sumay iyo Ibrahim way isguursadeen Sumay waxay isugu geysay dhammaan aaminaadeeda iyo jaceylkeeda iyo taageeradiisa waxaa sii raacay dhammaan qoyska oo ku dhawaaqay inay si farxad leh ula noolaanayso hooyadiisa oo ay u aragtay inay la mid tahay hooyadeed laakiin habeenkii aqalgalka Sumay waxay la kulantay la yaab iyo amakaag siigeeda cusub si xamaasad leh isagoo aan siin fursad ay ku nasato ayuu ku buuday wuxuuna u sheegay inay xamaasadda jaceylkooda ay tahay waan soo dhaweeyay ayay tiri Sumay inkastoo aan dalna dib ma sheegan waxay u muuqatay in galgaceylkii la isu qabay uu si degdeg ah ku burburay waxaa isbedel wajigiisa iyo xitaa midabkiisa waxay u sharaxday inaysan ka shakisnayn inaysan bikro ahayn iyadoo ka jawaabaysa su'aal uu weydiiyay inta badan dumarka dhiig kama yimaado sida ay sheegeen dhaqaatiirta iyo qaar ka mid ah khubarada iyadoo sharaxaysa sida uu siigeeda u falciyay Sumay waxay tiri sida uu eegayo waxay la mid ahayd qof dagaal ula jira uu idilay isagoo aan is ogeyn xataa iskuma uusan dayin inuu ila hadlo waxaan dareemay in la ideeriyay sida qof dacwad maxkamadeed ay u socoto guurka ka hor waxaan ku wada hadalnay arrimo badan ayay tiri xataa habeenkii aqalgalkeena oo aan filayo inuu noqdo midka ugu wanaagsanaa waxaan islahaa wax badan ayaad isgaranaysaan labadiina balse waxaas oo dhan way baaba'een markii uu bikarnimo meesha laga waayay maalintii labaad ee guurka wuxuu ku taliyay in ay dhakhtar u tagaan oo ay baaritaan lagu sameeyo iyada wax dhaqan hor oo soo jiray kadib markii dhakhtarka u tageen waxaa loo sheegay Sumay inay weli sideedii tahay uuna furmi karo oo kaliya kadib markii ay sida dabiiciga ah u dhasho Ibrahim wuu neefsaday wuuna dhool cadeeyay balse waqtigii ku dhamaaday Sumay waxay go'aansatay in sida uu dhaqsiyaha badan loo furo siigeeda wuxuu la mid yahay qof aanan is aqoon waxaan aad ugu carooday in uu aaminay wax ay bulshada dhaqanka dhigatay ma saadaalin karin waxaaga dhici kara wax kasta waa la filan karay shaki ma gelin karin badqabkayga iyo la noolaanshaha qof ilbirqsiga ku baabi'iyay xiriirkeena sanadaha soo socday tan iyo wixii markaa ka dambeeyay caafimaadkeeda maskaxeed ee Sumay wuu sii xumaaday waxay ka fogaatay dadkii soo booqanayay banaankana uma aysan bixi jirin dhowr bilood kadib Sumay ninkeeda ayay u sheegtay in ay doonayso in uu furo waxaan u xaqiijisay in go'aankeeda aysan ka noqonayn ayna nafteeda u baqayso sababtoo ah ma jirin jacayl ama rabitaan waxay ka dambeeyay habeenkii koowaad waxay kaloo u sheegtay in sida uu uga shakiyay ay ahayd gaf iyo liid uu u geystay waxay sheegtay in uu argagaxay sababtoo ah wuxuu dareemay in nin ahaan uu xaq u leeyahay in uu su'aalo xaaskiisa wixii hore ay u soo sameysay wuxuu ii sheegay inuusan ifuri doonin wuxuuna igula taliyay in aan ka fikiro ficiladeeda iyo in ay sababi karaan shalayto iyo qoomamo kadib markii qoyskeeda ay diideen in ay taageeraan furiinka Sumay waxay aaday Yurub bishii Juun